soomaalida diinta ka baxda iyo carabta diinta ka baxda xanuunsan gabadha la yiraahdo Wardo waa gabar Soomaaliyeed waa gabar aan filaya inay ku nooshahay cariga Somaliland inay ku nooshahay baan filaya marka waana gabar sida ka muuqata aqoon-yahana hadaba su'aasha aan rabo inaan gudaha u galo durba waxa weeyaan Warda ma gabar Christian aba mise waa gabar Muslim away dad badan ba waxay u soo qaadanayaan tusaale ahaan gabadhaasi inay tahay gabar Christian ah maadaama ay u soo qaadanayaan anigana hadalladeedii runtii markaan fiiriyay way isu kay qaadan waayeen dadku say uga falcelinayaan ama ay reaction uga sameynayaan iyo gabadhu qaabka ay u hadlayso runtii xaqiiqatan way isu kay qaban waayeen gabadha waxay noqdaan gabar muslimad ah may ka bixin la inuu ilaahay iyada ay u hadlayso ama ay u radinayso dadka Christianka ah ee diinta islaamka ka baxay dadka qalana waxay u soo qaadanayaan ayadii oo macatab xiran ayadoo baybalki ag yaallo ayadii oo maaragtay macatabkii loo soo geliyey waxan waa loo samayn karaa laakiin qaab noocaasay uga falcelinayaan haddaba gabadha walaasheen ah maxaan ka naqaanaa kow anigu intaan ka aqaana gabadha laba video ayaan ka haya videoga koobaad wuxuu ahaa markay ka hadlaysay ay ka qayb qaadanaysay ee ra'yigeeda ka muujisatay barnaamijkii ay universal qabatay ee sodohda looga hadlayay arrimaha sodohdu ma cadow bay ku tahay reerka oo way burburinaysaa mise sodohdu waxay ka mid tahay guriga sodohdu may guriga wiilkeeda miyay u idan qaadanoo gabadha miyay idan weydiisanaysaa mise xilligay doonto iyo wakhtigay doonto iyo say doonto ayay guriga u maamulanaysaa xilligay doontayna imanaysaa waad ogeydeenoo ra'yigii waa lagu kala duwanaa dadka qaarkood waxay dhaheen sida gabadh iyo wiilkii aad u caanbaxay waxay dhaheen ayagu gabadhu maamada sodohdii midig gabadhu waxay tiriba totally bayna guriga imanin wiilkiina wuxuu yidhi markay imanayso waa inay idan uga qaadato xaaskayga hooyaday oo sodohdeed ah waa inay xaaska uga qaadato leanna guriga xaaska iskale maamula buu leeyahay kuwa kuma dheeraanayo xilligeeday lahayd way ka hadleen dad badan baa ka hadlay culimo iyo caamaba waa laga hadlay laakiin waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo oon falanqeeyo gabadha la yidhaahdo Warda maalinkii way ka hadashay hadal aad u qayim ah oo qurux badanna way ka tiri ooy leedahay sodohdu cadow ma aha sodohda wiilka dhashay ee wiilka soo korisay waxay mudan tahay waa hooyadii guriga in la ixtiraamo wiilka iyo gabadhuba si wada jira ay u ixtiraamaan leanna guriga dhismayba ayadaa soo dhistay mararka qaarkood hadallo way jiraan dadka qaarkood ay leeyihiin hadallada ay ka geysatay meeshaas qaar ka mid ah waxaa ku jiray qumuud ama qarsooni waxbaa shaati bay huwanayd marka arrintaa aad bay laakiin runtii xaqiiqatan jaanibka waxay ka mid ahayd xaqii sodohda ama wiilka hooyadii ilaalisay midda ay gabadha dhashay ee sodohda wiilka ah ee kalena ilaalisay xaqeedii qaab aad u cilmiyeysan uga hadashay uga dooday ayay ka mid ahayd bal hadalkeedii ila dhageyso xageero dhan especially dhinaca ragga caatifad iyo magaratay iyo fawda waa dhageysateen hadalkii ay ka geysatay Wardo doodii halkaa ka dhacaysay waana hadal qof waliba laga yaabo inay dadka qaarkood wax kala soo dhexbixi karaan laakiin anigu runtii xaqiiqatan hadalka waxaan u arkayay hadal munaasib ah oo maasha Allah meesha ku ah waxayna ka mid ahay dadkii hadallada quruxda badan ee cadaaladu ka muuqata ka dhahay meesha walow aniga laftayda far ay ii taagan tahay oo leeyahay gabadha xoogaa hadalkeeda falsafiyad baa ku jirta falsafa ku jirto waxay u baahan tahay qalitaan badan buu u baahan yahay hadalkeedu sababta lahjada ayaa adeegsanayso oo aad moodo ilmihii inta badan dibadaha iyo wax ku soo bartay ood moodo af Soomaaliga inay qaabkii ugu hadlayso laba inaad moodo waxyaabo badan ay gocanayso inay soo dayn laadahay aniga laftaydu waan ka dareemay waxyaabo badan oo waxaan leeyahay ay goconaysay ama ay aaminsan tahay ayada oo ilaalinaysa reactionka ka iman doona bulshada Soomaaliyeed way ilaalinaysay arrinta aniga laftaydu su'aashaas way ii taagan tahay meesha dadka qaarkood waxay u fasirteen nin meesha ka hadlay oo abwaan ahaa oo runtii xaqiiqatan hadalla macaan ka dhahay meesha dad u weeraray ina iyada ka mid ahayd ayay leeyihiin
oo dadku ku tilmaamayey ciyaal say wallaahi uu ku tilmaamayey dhaqanka waxba ka aqoonin inuu ayada u jeeday bay dadka qaarkood sheegayaan, laakiin allahu aclam isaguna noomuna sheegin oo qof gooni amuuna farta ku godin. annaguna inaanu hor orodno ma aha. waxaan leeyahay yaynaan hor ordin. wixii jiraba soomaalida waxay dhahaan warkii jiraba cakaaru iman, marka yaynaan hor ordin baan dhihi lahaa. taana waa xaggaasaan uga baxay. barnaamijka ku saabsan labaad ee gabadhu ka qayb qaadatay ee ka hadashay ean dhihi kara si xoog leh bay uga hadashay, welibana aniga igu dhiirigelinaya gabadhan inaan la dhihin christian weeye, ama aan calaamado muujinayna christian tahay lagu dulqabanin sida calaamada kiristaanka balaaska ama baybalkii oo kale, inaan calaamadaha ama cinwaan looga dhiganinba ama thamnay looga dhiganinba. barnaamijyada saas oo kale waxaa ka mid ah markay ka hadlaysay barnaamijkii ku saabsanaa dadka kiristiyaanka noqonaya, waxay tiri dadka islaamka ka baxaya ee soomaalida ah ee aad u soo badanaya, aad arkaysa bay tiri ayagoo soomaali qurux badan ku hadlaya oo soomaaliga aad u yaqaana, inay gaaloobeen oy ridoobeen oy diintii islaamka ka baxeen. waxay adeegsanaysay ereyga riddo ayay adeegsanaysay, way ridoobeen, islaamkii bay ka baxeen. waana run, qofka hadduu muslim ahaa oo uu diintiisi ka laabto oo christian noqdo ama diin kala qaato ama diinlaawo noqdo, murtad buu noqonaya. diintana islaamku saasay ku xukumtay. gaalka caadiga ah iyo isagana isagaa ka xun. marka waxay tiri dadka noocaasa ee carabta iyo soomaalidaba leh ee diinta ka laabana iyagoo fayow kama laabtaan, ayaga oo waalan oo maskaxdoodu balaaya ku furan tahay oo shaytaan waswaasiyey oo balaaya ka adeegatay ayay diinta islaamka ka baxaan bay leedahay. ma aha iyagoo fayow oo inay ka baxayaan diinta islaamka. waxyaabahay tiri waxaa ka mid ah waxay ka baxayaan diinta islaamka mar ay maaragtay noqdeen isla hadal dhaqaale xumo ku dhacday, maaragtay la cusuriyeeyey, waxyaaba saas oo kale intay iska dhaadhiciyaan ayay diinta ka baxaan bay tiri. anigu waan ku khilaafsanahay ra'yiga 100% waan ku khilaafsanahay. dadkani iyagoo fayow ayay ka baxayaan dad diinta islaamka. waan dhihi karaa qayb ka mid ah ayaga oo dhaqaalo la-aan baa kalifta mararka qaarkood, khaasatan soomaalida oo kale markay dhaqaalo la-aan ku dhacdo si ay dibadaha iyo ugu aadaan oo hay-aadka iyo meelaha kiristiyaanka wax uga helaan ama kiniisadaha ayay diinta islaamka ka baxaan. waan dhihi karnaa qaarkood waxaan dhihi karnaa dhibaato iyo maaragtay cadaadis ay dareemayaan daraaddii ayagoo ka fakaraya ayay kiristiyaanka u qaataan. qaar kale oo welibana carabtiya u badan yihiinna waxay diinta islaamka uga baxaan kibir iyo shuhuro aad heshid. waddamadooda ay tilmaamayaan inay yihiin waddamo diinta islaamka ku adag oo diinta aad looga tadbiiqiyo ayaan ka cararaynaa. waddamadii gaaladay tegayaan, waxayna leeyihiin hanala badbaadiyo, annaga diinta islaamka waan ka baxnay, diinta kiristiyaankaan qaadanay. dadka kibir iyo duqyaan iyo waxa u keenaya hanti waxay ayna haynin ma jirto. waxaa ka mid ahaa tusaale aan idinku soo qaadanayo gabadhii uu dhalay ninkii boqorka ahaa ee joogay waddankii aad garanaysaan ee ahaa imaaraat. gabadhiisii aad garanaysaan ma dhaqaale xumaa haysatay, ma wax dhibaato abaa haysatay oo diinteeda ka haysatay? waa maya. mushkiladdu waxay ka haysatay un kibir iyo waxaa caydhinayay iyo baqbaq iyo maaragtay hantiga. sidiisaba dhaqaaluhu wuxuu sameeyaa wuxuu keenaa dhaqaaluhu inuu qofku kibro, shaydaanku ka faa'iidaysto, fasahaado. in badan bini aadankani waxaas leedahay waxa weeye ilaahay baa inaga yaqaanoo sheegay khuliqa haluucan, sina kuma roono weeye. haddii barwaaqi iyo hanti iyo adduun la siiyo kibir, wuxuu leeyahay halkan waa laygu gumaysanaya, halkan sana igu dhacaysa, halkana kana igu dhacaysa. diintii islaamku ka baxaya. hadduu gaajoodana wuxuu leeyahay baahi baa idilaysa, hala ii gargaaro. saasoo kale diintii uga baxaya. marka anigu waxaan leeyahay gabadha dhinacyo badan markaan ka fiiriyo labadeeda kilib een dhegaystay, mid walba ra'yiyo aan ku khilaafi karno iyo shakiyo aan ka muujinayno way jiraan, laakiin gabadhaasi waa gabar muslima. shaydaankana aynan ugu kaalmaynin walaasheen inaynu diinta islaamka intaan ka saarno oo ayadoon ka bixin diinta intaynu ka saarno inaynu shaydaanka ugu kaalmayno.